السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن القدومية اللي أنا شرفت له. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو كوبا دكتور عرب أنا وعمبليه وأنا كان عمبليه ودله إذا مدى جبلان إذا مدى حوض الدلكة كسوغن جبلان وشي ما تروسوين ومدى صوماليين أيضا 10 أنا هرب على كل ذي خواريجته وحاها كان بعض الإدارة دولة الفدرالكة إن الجرب استاجتو معامل جبلان سيدي أيو جرب استاجتو معامل جبل مدك يدعاله كسر عليه هرشة سلم منه وإن أيو جرب استاجتو معامل جبلان سلم كلامه شعب الصومالية يحل معنا وإن جرب استاجتو كاس عليه بدعاله من الصومالية وحرنا أرنت يبقى وحبنا يا رجال العلي ما كان أنا إذا كنت سأل جعل الله حل معنا شرفت له كان جوجو أرنت عنه وحيسو صحتي دور إلا أي دولتي ده كان البربرتي وحيتي لي United Nations Security Council كيتي لي مركان كسر عن حياتها كان كسر حطه dhibaatada nooga imaan karto arrinta hubka waa arrin international sida la socotaan dalkan international arms embargo saarneed dowladdan hadda joogto iyo kuwii ka horreeyana waxay ka shaqaynayeen in laga qaado dalkan waa nasiib darro maanta in dalkii si sahlan ayadoo bilowday ay ka soo wareegatay waa fadeexo waa khiyaano qaran in maanta bilowday kadib aan leenahay hubkan cidaraha dalkii soo galay arrintaanoo kaleeto dalalka markay ka dhacdo waa la iscasilaa laakiin wax iscasilaa uma jeedo insha allah mooshin ayaa halkaan imaan doonaa u jeedaa waxaan ku baaqayaa in arrinta baaritaankeeda aan la yaraysan waa arrin international ah sidaa la socotaan dalkan inuu hore u socdo ayaa la rabaa fashil ayaa meeshaas ka dhacay khiyaano qaran ayaa ka dhacday dadkii ku lug lahaa ama dowladda madaxdeeda saaxiibaa la ahaadaano ama ganacsato kala ahaadaano waxaan codsanaynaa in cadaaladda la horgeeyo cadaaladdan insha allah waxaan ka rajaynaynaa inay tiirka soo istaajiyaan dadkaas ku kacay khiyaano qaran oo dalkan dib u dhigaayo waxaan la soconaa si lamid ah adduunyada isbeddeleedu ka dhacayo sida dalka maraykanka hadda nin baa loo badinaya inuu soo noqonayo ma haysanaa xukuumad le capacity ee ku akrin karto waxyaabaha caqabadaha dalkan kusoo foodleh ma u malaynayo aniga wasiiro tiktok ku jiro iyo social media in ay dalkan ay wax ka qaban karaan iyo xaaladda uu ku sugan yahay annagoo og in bilooyin hubsal adaraa uu soo galay waxaan u baahan nahay dad capacity leh la xisaabtami karo adduunyada kale dalkaanna wax u qaban karo taas haddii aan ka soo tago arrinta dagaalada sokeeye sida aad la socotaan hadda 10 gobol ayaa waxaa ka taagan dagaalo beeleedyo taasne waa fashil aana hore u jirin waana wax cad in beelihii ay hadda isugaynayaan ayagoo ku marmarsiyanaya shabaab isku diyaarinayna dagaalkooda laakiin dagaalka dhabtaa waa ayagu inay isku diyaargaroobayaan shabaabkiina ka dhex faa'iidaysanayo ayagu inuu isku tuuro shabaabna way ku guulaysata arrinkaas waa xaqiiq jirta waa haddii la rabo in hore loo socdo waa inuu isbeddel dalkan ka dhacaa maadaama meel walba lagu fashiliyo anu sidaan arko waxaa soo hartay arrinkan xasaanadda xildhibaanada oo dhowr jeer lagu soo celceliyey in xildhibaanadii xasaanadeedii hoos loo dhigay horta annaga xasaanadeena wax hoos u dhigi kara ma laha annaga aan ahayn annaga ayaa la rabaa inaan waajibaadkeena gudano wasiirkii arrimaha gudaha uu fadhiyaa gudoomiyaha gobolka in halkan loogu yeero wax xildhibaanada ugu garta inuu sheego hore beriyahan saxaafadan ka hadlayay waxaa la yidhi xildhibaanow maxaa kugu dhacay laaluushaa la qaatay kan waa etoobiya loo shaqay etoobiya waa cadowga dalkan annagu laaluuska ma qaadano laakiin wixii qaldan inaan sheegno waa waxana loo soo doortay waxaan ka shaqaynaynaa danta qarankana mid adeer iyo weel aan isku beelnahay ma jirto qofkii xildhibaanada xasaanadeeda ku xadgudbo waa waajib annaga dhanna saaran inaan qabanno
sidoo kale waxaa la socotaan adduunkii wuu hormaray artificial intelligence iyo technology uu isku bedelay waxaana u fiican muqdisho guddoomiye gobol ama gobolkan banaadir oo dhallinyaraa adduunka cusubna la jaan qaadi karo og meelahan dowlaha oo biyaha ku jiraanna ka hagaajin karo anugu waxaan deganahay dhulkaas number 4 aan deganahay number 4 roob yar markuu doon jirana xirma qofna kuuma imaan karo qofna uma tegi karti marka taasna waxaan leeyahay waa ka xumahay waa nasiib darro in xildhibaanada lagu sheego dad ka soo horjeedo dagaalka shabaab lagula jiro adinkoo og annaga dagaalka shabaab inaan nafteenna u hurnay oo halkaasaan aadnay haddana insha allah jubbaland waan aadi doonaa inaan dhulkaas laga xoreeyo waa mahadsan tihiin mar labaad mar saddexaad aad baa u mahadsan tihiin السلام عليكم gudoomiyaha xildhibaanada sharafta leh maanta doodan waa isku raran saddex doodood oo aada u culus baa dusha la iska saara xildhibaanada waxaad moodaa sabtaas in labadii sano u dambeysay dad badan aanay farxin qof kastaaba wuxuu odhanaya maanta aad baan u faraxsan midda hubka baarlamaanku wuxuu leeyahay guddiyo joogto oo dastuuri ah oo kor joogteeya hay-adaha dowladda anugu maba qabo in inta guddi la saaro wakti lagu lumiyo baarlamaanku guddi wuxuu leeyahay guddiga amniga iyo arrimaha gudaha mana arko cid diidan in lala xisaabtamo hay-adaha dowladda guddiyada iyo xildhibaanada waxaad moodaa in iyagu isduqaynayaan goob lagu diiday in xukuumadda lala xisaabtamo anugu ma garanayo inay ku jirto midda markasta lagu soo celcelinayo ee amniga in dagaalka la siyaasadaynayo khawaarijta lagula jiro waxay aada u niyad jebinaysaa ciidanka furimaha hore jooga ee midooda inoo huraya inay dalkan amni iyo xor ka dhigaan waxaad u malaysaa in xaaladdu ay tahay wixii xunba xaawaa leh haddii islaami dariiqaas ku kufto waxaa la odhanayaa xukuumaddaa jebisay mina inaynu mas-uuliyadeyna saarnayn mina beelaha istagaalaya iyo dadka dhibaatadu hayso inagu metelin inaynu ka soo jeedo inaga matalaadinima waxay tahay un intay baarlamaanka nimaadno inaynu wax dhaleecayno qof kasta oo xildhibaan ah oo mas-uula oo xagga jooga waxay mas-uuliyad ka saaran tahay amniga dalkan arrimaha bulshada shacabka dhibaataysan waxay mas-uul ka yihiin inay dadka islaynaya ee colaadaha ragaadiyeen qabaa'ilka ah dadka ehelka ee dariska ah in la kala dhexdhexaadiyo in wanaag lagu kala dhex galo mas-uuliyadayna saaran mas-uuliyaddeenu maaha inaynu golaha shacabka nimaadno aynu cid dhaleecayno ama guddoomiyaha ahaato ama xukuumad ha ahaato xukuumadda inaga korjoogtay kule inagayna looga baahan yahay inaynu la xisaabtano oo guddiyada dastuuriga ah ee joogtada ah ee baarlamaanka uu leeyahay la xisaabtamaa ciddii danina ma jirto fadlan yaan la soo dhex gelinayno militariga masaakiinta ah ee furimaha taagan ee ku jira nafurnimada ee ummadda soomaaliyeed u dhimanaya ee reerahooda ka tegay inagoo halac qabow fadhina inagoo baabuur wadana inagoo ciidamina ilaalinaya inagoo guryahana intay ka soo toosnay aynu soo labsanay baarlamaanka soo fadhiisanay yaan la siyaasadayn siyaasadda yaan la gelin niyadjabna yaan la gelin siyaasiyiintaynu nahay intan xagga hooda taaganaynu ka wada hadlayno waa siyaasad amniga haddii aan waxba loo taraynin raggaas furimaha fadhiya oo waxba idin taraynin ha soo gelinina siyaasadda waa mahadsantihiin